absamo bogaadeen buu kamid yahay munasaba muxuu yahay muxuu daliishanaya ma waxaan ma qaadan karaa anagu qoladii awal iska lahayd ay kaalayayo qaata adar masaasuna leeh waan diidnay ma yeelino mana aqbalayn wiilasha dagaal inaysan gelin ciidamada iyo muxuu ahaa dawladda Soomaaliya ciidankeeda ay ka mid noqdaan ay garab joogsadaan oo cadow wadanka haysto ay muxuu ahaa ka furtaan ay ka wada furtaan waayo qaxooti baan lagu naalaysi jiray annagoo Soomaali xoreynteedii qaybtii u badnayn qaadanay annagoo halgamayaashii Soomaaliyeed tariiq maxaa Cabdullaahi kuwa u badan lahayn annaga oo muxuu ahaa mar walba oo guul Soomaali loo raadinayo kuwa hormuudka annagoo ku anfacnay kuwa dalalkii kale muxuu ahaa qaybaha annagu deganaayeen intaasoo karaama annagoo keenay karaamadannadu iyo xaqannagu Soomaali ka mid maanaan ahayn 63 sano 63 ka sano inaan xaqannaga weyno dadkii noogu wacnaa ee sababta ka shaqeeyay ee Soomaali mariyay Soomaali ma wada he waan naqaana wama aragno inay yihiin ciidan duulaan ah bal ciidan dalkoodii yimid oo Soomaaliyeed weeyaan oo meelihii ay ka baxeen maaragtay atmis yimid oo noo bedelay marka arinta aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa deegaankaas oo baabacsanaa muddadii ugu dambeysayna inuu markii ugu dambeysay hadda nolol ka bilaabato dhiig daata uma baahnin dhiig daata walaalayaal uma baahnin dhalinyaro intay tahriibaan badaha ku habqamo oo ku daata uma baahnin sharaf dhac adduunka aan ku karaamo beeloon qaxooti ku noqono uma xiisa qabno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan ka hadlaynaa arrimihii noo soo socday ee ku saabsanaa dhibka ka taagan jubbada hoose iyo muxuu ahaa dawladda national government of Somalia dhibka ka taagan ayaan muxuu ahaa hor nooga hadalay haddana ka hadlaynaa aniga codsigayga wuxuu yahay reer Jubbaland waxaan ka codsanayaa dawladda inay wax la qabsadaan oo ay dawladda gacan siiyaan oo ay sharciga dastuurka waddanka u hoggaansamaan dagaal wiil baa ku dhintay wiilku ma dhasho dagaalna laguma jiri karo in badan bay dagaal ku jireen oo dawladdi kastoo dhisanta Soomaaliya ka dhisanta ay ka goonaayeen maanta inaysan ka goonaanin oo dawladda ayaga madax ka ah gambarka labaad bay ku fadhiyaan ay wax la qabsadaan ka faa'iideystaan garab u noqdaan ayaan ka codsanayaa maanta ilaahay wuxuu ku manaystay 63 sano nafis aysan helin darajo aysan helin madaxnimo aysan helin ilaahay maanta ku manaystay waxay Soomaalida dhahdaa tuka calaf waana ku arku qabaa ku dhama ma qabo waxaan rabnaa arinta ayada inaan calfano aan garab joogsano aan ka faa'iideysano dadkeena iyo dalkeena aan uga faa'iideyno Soomaali aan uga faa'iideyno taariikh aan dhigno Soomaalida waxay dhahdaa waari maysi warha ka haro waxaan doonaynaa wixii inta naga maqnaa inta naga horeysay waxay sameeyeen oo wanaag oo ka badan inaan sameeyno oo Prime Minister ra'iisul wasaaraha uu sameeyo ayaan doonaynaa kana filanaynaa marka waxaan ka codsanayaa qaranka ku nool Soomaalida ku nool muxuu ahaa ama qaranka kuumade waxaan ka codsanayaa inay safka hore galaan dawladda garab u noqdaan garab joogsadaan ninka muxuu ahaa wuxuu qaban rabo ay muxuu ahaa garab joogsadaan garab u noqdaan ayaan ka codsanayaa waxaan ka codsanayaa wiilasha dagaal inaysan gelin ciidamada iyo muxuu ahaa dawladda Soomaaliya ciidankeeda ay ka mid noqdaan ay garab joogsadaan oo cadow wadanka haysto ay muxuu ahaa ka furtaan ay ka wada furtaan ayaan ka codsanayaa 13 sano ayaa hal magaalo ay degan tahay muxuu ahaa Jubbaland dawladda ka dhisan oo fadhiido tahay 15 degme ee Jubbaland ka koobnayd hal degme kaliya ka haysata 6 muxuu ahaa gedo ma haysato 4 jubbada dhexe ma haysato 5 jubbada hoos waxay ka haystaa Kismaayo ka haystaa waxaan codsanayaa tala maalin bay kula siman tahay reer Jubbaland daatihiin haddaad kuumada tihiin laf dhuuxle iyo dhagax maalin baa la isla helaa maanta ay saaran tahay ka faa'iideysto alamin salatu wassalamu ala rasuulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd walaalayaal hadalka qiimihiisii waa la yiri murtidiisii waa la sheegay marka meel aan kaga noqdo iga banaanba hadda ma arko kaliya waxaan oran lahaa Soomaaliyeed dantiina garta dawladnimadiina dhista midnimadiina ilaaliya qabyaaladda iyo qoqobka ka fogaada
dibdhaca aan ku jirnayn adduunka ka hadhnay yaynaan ku sii jirin. war dalku waa dal Soomaaliyeed, ummaddu waa ummad muslim ah, dadku waa dad walaalo ah, dhiig daata uma baahnin, dhiig daata walaalayaal uma baahnin. dhalinyaro intay tahriibaan badaha ku habqamo oo ku daata uma baahnin. sharaf dhac adduunka aan ku karaamo beelo oon qaxooti ku noqonno uma xiisa qabno. walaalayaalow, dulqaad iyo sabir iyo kala dambayn yaa meel lagu gaadhaa. haddii kale waxaa weeye fawdo iyo in sidii laysu cunayo laysu cuno ayaa laga dhaxlahayaa. walaalayaal, fawdada ha laga fogaado, sharciga iyo kala dambaynta iyo nidaamka ha loo hoggaansamo. wada hadal qofkii wax tabanaya iyo usluub iyo akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan waxa ku raadiyo, taasaa ina deeqda. qofku walaalkiis muslimka ha walaalaysto. ixtiraam iyo kala dambayn iyo isqadarin ha lagu shaqeeyo walaalayaal. qof aan dhaliin lahayn adduunka ma jiro, wax macsuuma oon ambiyada ilaahay ahayni ma jiro. marka macsuumiin ma aha siyaasiyiintu, laakiin xeerarka iyo nidaamyada la dhiganayo ha loo hoggaansamo. ummadda la matalayana yaan lagu ciyaarin maskaxdooda iyo maankooda yaan lagu ciyaarin. midnimada yaan la dhaawicin, dadka yaan la iska horkaynin. dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ah yaan qabyaalad iyo qurun loo horseedin. intaasaan odhan lahaa. wabillaahi tawfiiq. annagoo ka mida waxgaradka reer Jubbaland oo halkan isugu nimid, waxaan rabnaa inaan wax ka dhahno qadiyadaha hadda taagan. anigu waxaan rabaa inaan wax yar ka tilmaamo xaaladda ka taagan dhinacan Raaskambooni ama dhulkaas Chore loo yaqaano ama Badhaadhe. baan rabaa inaan wax yar ka dhaho. awalan waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo ciidanka dowladda federaalka ee yimid dhulkaas. runtii dhulkaasi waa dhulka ugu ballaadhan Jubbaland. muddo aad u dheerna dhibaataa ka taagnayd, xorna ma ahayn. dadka deegaankuna rafaad aad iyo aad u fara badan bay ku jireen. marka waa ilaahay mahadii haddii maanta ciidan yimaadeen oo dadkii ay rabaan inay ka xoreeyaan mataqaanaa nimankaas dusha ka haystay al-shabaab, oo noloshii ay u soo celiyaan, oo waxbarashadii iyo xayaatadii iyo maxaan ku rahay institutionkii iyo infrastructurekii inay soo celiyaan. waan ku faraxsannahay. uma aragno inay yihiin ciidan duulaan ah, bal ciidan dalkoodii yimid oo Soomaaliyeed weeyaan, oo meelihii ay ka baxeen maaragtay atmis yimid oo noo bedelay. marka arrinta aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa. deegaankaasoo baaba'sanaa muddadii ugu dambaysayna inuu markii ugu dambaysay hadda nolol ka bilaabato, arrin aad iyo aad loogu farxay. waa deegaan aad u weyn oo ka badan 3,000 oo kilomitro square ka badan. marka in ciidanku yimaadaan waan ku mahadcelinaynaa. waxaa kale oon ku darayaa ciidankii reer Jubbaland ee ku soo biirayna way ku mahadsan yihiin. sida loo soo dhaweeyay kuwa federaalka u soo dhaweeyeen walaalahoodna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. ilaa haddana dagaal kama dhicin, dagaalna ka dhici maayo insha Allah. umana aragno in ciidanka federaalka meesha jooga uu duulaan ku yahay Jubbaland. waxaas waa dacaayad, waxna kama jiraan. duulaan ma aha, dalkoodii bay yimaadeen. hadday cid duulaan ku yihiin waxay duulaan ku yihiin al-shabaab. marka waxaan leenahay ciidankaas waa ciidan Soomaaliyeed. dowladda Soomaaliyana dee waa dowladdii guud oo meel walba xaq bay u leedahay inay tagto, oo hadda duulaan uma aragno. marka waxaan rabaa inaan madka u sheego in maaragtay dadku ay mid yihiin, dadku ay walaalo yihiin, cid duulaan ah ayna jirin. deegaankaasina uu u baahan yahay dowlad, uu u baahan yahay dowlad. kama jirin, rafaad baa ka jiray muddo dhowr iyo 10 sano ah. hal meeloo xoraysnaydna kuma jirto. marka runtii arrintaas aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa. waxaa kaloon maamulka maxaan ku idhaahdaa Jubbaland ugu baaqayaa maxaabiista ragga murashaxiinta xidhxidhan ee guriga lagu xiray in iyadana la sii daayo oo xorriyadoodii ay helaan oo meeshay rabaan aadaan oo ay xorriyatul qowl u ogolaadaan. adduunka waqti casriyan ku jirnaa oo qofka loo ogol yahay inuu hadlo oo wuxuu rabo uu cabiri karo, cabirkiisa uu sheegan karo. taana waxaan leenahay waan ugu baaqaynaa inuu maamulkaasi caburinta ka daayo dadka maaragtay iyo marin habaaminta bulshada lagu hayo oo la shidayo kaadh qabiil
amaba mataqaanaa dad weerar ku saa ma jiro cid weerar ku saa Jubbaland ciidanka dawladdu way yimaadeen joorey bay yimaadeen xaq bay inuu leeyihiin inay yimaadaan cidna weerar kuma aha saan tilmaameen hadday cid weerar ku yihiin waxay weerar ku yihiin al-shabaab bay weerar ku yihiin reer Jubbaland weerar kuma waxaan rabaa dadku inay kala fahmaan Jubbaland iyo maamulka waa la eedayn karaa maamulku berri buu isbedeli karaa maanta nin baa jooga berri nin kala imaanaya Jubbalandna waa dawlad goboleed jirta haddii marka maamulka lagu qanci waayo micnaheedu maaha in Jubbaland weerar lagu yahay dadka qaar ba waxay leeyihiin Jubbaland weerar cidina kuma aha cid nooga lex jeclo badanna ma jirto wanaag iyo khayr baana la rabnaa laakiin dadka u fahansan in maamulka hadda jira oo wax laga sheego ama la yiraahdo hal la bedelo ama hal la yiraahdo wax saxo inay micnaheedu tahay Jubbaland oo la weeraray waa khalad iyo fahan darro weyn way arintaana in la fahmaan rabaa waa mahadsantiin ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogtaba waa salaamaya waxaanan u soo jeedinayaa fariintaas guud ahaantoodba maxay tahay nimayahow qarannimo qiimahay leedahay waad soo marteen qaran la'aan dulliga uu leeyahayna waad soo marteen idilaa hadda ku jirtaan 34 sano waxaan soo jeedinayaa war 34 sano dulligan kuma sii jiri karree oo geedgeedun uma kala xidhnaan karree qarannimadii Soomaaliyeed ee ciilka kaga bixi lahayn dalkana xiftii lahayd waxa weeye aan baadi doono oo aan ku soo noqonno xuduudka sharafta taas Soomaali baan wada jeedinayaa markaan leeyahay aan ku soo noqonno xuduudka sharafta waan ka maqnayn waayo niman qaran lahayn dee sharaf ma leh intaasaan ka leeyahay Soomaali baan u soo jeedinayaa oday gaboobay oo raggii hore ka hadhay baan ahay waxaan leeyahay carruurahan awowga u nahay iyo kuwaynu dhalay mugdigan yaynaan uga tegin haddaan sidan uga tagno mugdi baan uga tagno maantay inala gudboon tahay oo doorasho qof iyo codog mugdiga waxaa lagaga bixi karaa inaan kala xidhnida yacni dhulka ku dhufanno oo aan Soomaali noqoto in qaanuunku sarreeyo wadda iskoysaan maanta taagannahay ilaahay baa mahadle waxay noo qabsoomay waqtigii xasan sheekh oo hadda madaxweynaha noqday wax fara badan oo ilaahay inaan ugu xamdino ay tahay oo ah dawladba maynaan ahayn meeshan tada waxaa weeye cunaqabatayd hubbaabayna saaraydoo hal maara maynaan soo gadan karin caawa xor baan nahay taangiyaal baan keensannay iyo diyaaradu dawladaan bunuugta adduunka la xidhiidhayni dawlad ma aha maanta ilaahay baa sabab muxuu ahaa nasiib wanaag kuwan u siiyey in ay keenaan aqoonsigii dhabta ahaa oo miisaaniyadda cunaqabateedna laga qaaday waxyaabaha dhacay bariga Afrika golaha ammaanka waxa kordhay ee xukuumadanu ay kordhisay ninka keena khayr waxaa loo baahan yahay in loo qiro oo wax kale haddaan la siinayn waad mahadsantahay la yidhaahdo waad mahadsantiin la yidhaahdo waxaan leenahay annagu madaxweyne xasan sheekh iyo dawladdan federaalka ee dawladdiisa 2 sano iyo dhowrkii bilood shaqaday qabteen waa laydin mahadiyey ku sii wadan idin leena waanad ku mahadsantihiin dab ninkii yidhaha ma afkaa goban baa layidhi wax runaad qabateen waxa runta ana inta wax garan hayso oo dhani way ayidsan tahay haddana ku sii wadaan idin leenahay intaana intaada iga tahay waxaa ii soo hadhay maalmahan kala waxaan arkahayey idaacado dad uun iska hadlahaya iyagoon xaaladda Soomaaliya xogogaan u ahayn reerkan kuumadaha la yidhaah ama absamaha la yidhaah ama wadeenka la yidhaahdo markaan ka hadlo waxaan u malayn 63 sano ka midba mayna ahayn Soomaalida xuquuqda leh mayna ahayn waa xaqiiqo weey waayo qaxooti baa nalagu naalaysi jiray annagoo Soomaali xoreynteedii qaybtii u badnayn qaadanay annagoo halgamayaashii Soomaaliyeed tariiq maxaa Cabdulaahi kuwa u badan lahayn annaga oo muxuu ahaa mar walba oo guul Soomaali loo raadinayo kuwa hormuudka
annagoo ku anfacnay kuwaanu dalalkii kale ee muxuu ahay qaybaha annagu deganaayeen intaasoo karaama annagoo keennay karaamadannadu iyo xaqannagu soomaali ka mid maanaan ahayn 63 sano 63 sano inaan xaqannaga weyno dadkii noogu wacnaa ee sababtaa ka shaqeeyey ee soomaali mariyey soomaali ma wada ahe waan naqaanaa madaxweyne xasan sheekh kun jeer buu mahadsan yahay kun jeer baan u mahadcelinaynaa tiisaa ahayd shaksiga madaxweynaha keliya intuu fakaray ku qalcay dulmigaana loo samaynayey ee muxuu ahaa soomaali laga sharciyeeyey gardarrada ah ee keligana lagu dhacayay adhaxda ninka ka jebiyey oo waxaa weeye baray madastar aan xaq u lahayn waxaa weeye na siiyey weeyeen ninkii nasabka gala oo magacaa ogaadeen sheeganhaya ama ka absame ama ka kuumade ee nasabka galaana taaguu garanaya shalay markii uu ku dhawaaqay adduunkoo dhan ayuu absame iyo ogaadeen adduunkoo dhan bay hal sano bay muxuu ahaa banaanbax iyo dhaanto iyo xamdi ay ku jireen ninka maanta hadlayaa marka oo xasan sheekh iyo madaxweynaha iyo ehelkiisa wax ka sheegayahay adeerayaalow ma absamo ma ogaadeen buu ka mid yahay ma nasabbaa muxuu yahay muxuu deliishanayaa ma waxaan ma qaadan karraa annaguye qoladii awel iska lahayd ay kaalayahay oo qaata adeer ma saasuu na leehay waan diidnay ma yeelayno mana aqbalayno madaxweynow raalli ahow obaljees baan ku siinaynaa annagaa caafimaad qabna waxaad gashay iyo waxaad guddana annagaa naqaanaa soomaali guud ahaan waxaad u keentay oo maanta isgoyskaas muxuu ahaa buundada ahe qaanuunka la ansixiyey taagan yahay markuu dhaafo dowladnimadii qarannimadii soomaaliyeed kii ku soo celiyey ku guulaystaa tahay kun jeer baana kugu mahadcelinaynaa waana aad baan kuugu mahadinaynaa waxaa ii soo hadhay waxaan maqlahayey qabiilkuu ka dhashay hawiye yaan maqlahayay kuwa leh war waxaydaan aqoonin baad iska dhex galaysaane hawiye horta qiimuhu ku fadhiya ma taqaanaan hawiye magaalo madaxdii buu degan yahay ilaahay baa magaalo madaxdii dejiyey hadduu degan yahay ma magaalo madax hawiyaha mise waa magaalo madax soomaaliyeed culayska ugu badan ee soomaali ay leedahay yuu ku dhacaa hadday dhaqaalo tahay hadday siyaasad tahay yuu ku dhacaa hawiyuu ku dhacaa way samraan ma yidhaahdaan ma yidhaahdaan dhibka ugu badan yaa lagu hayaa hawiye dekedihii qaranku lahaa ee taxamaroo kale ahayd mid walba soo wiil uuna jeebka kuma rito miyuu qaranka soomaaliyeed u keenaa dekeda waxeeda la cunaaso tii hawiye deganaa maaha war soomaaliya ilaahay baa idinku dhaariye ma hawiya mahadsan idin mooyeene in wax loo dhimo ogaadeen daayo absamo daayo waxay u tareen daaye soomaaliyay hawiye khayrka iyo wanaagga iyo dulqaadka uu soomaali u yahay qabiilka kale u lehay waa kee qabiilka kale daaqada buuxin karaa waa kee waa waxaan jirin weeyeen tolkanna hawiye soomaalida lambarwankeedii oo soomaaliya oo soomaali inay sidooda ku xukumaan ninka hawiye wuxuu isu sharaxay isagoo hawiya inuu xukumo laakiin kuwa kale oo dhan gaalo inay soomaali ku xukumaan bay dooni iyo gubaysi ma doonayna nin gubaysi wata mana rabno waktiguu naga lumin karay 63 sac way naga lumiyeen waxaan leeyahay tolka hawiye ee soomaalida ee gobashii soomaaliyeeda ee gurigii soomaaliyeeda ee dhibka soomaaliyeed uu ku dhaco ee dulqaadka u lahow waad mahadsantihiin kuwa aan waxgarad ahayn hadday eray xun idin yidhaahdaan annagaa idinka raalli gelinaynaa annagaa garanayna waxaad ku filantihiinna annagaa garanayna waanad mahadsantihiin noogu sii wada qarannimadii soomaaliyeedna waan ku guulaysanaynaa waanad ku guulaysanaysaan xaqiiqiyan haddii ilaahay yidhaahdo intaasaan ka leehay waxaa ii soo haray dowladnimo ciyaar kuma timaado baryana kuma timaado hebel oo lalaarushana kuma timaade waxay ku timaadaa halaan oon wadin ulimo wadaan layi geela haddaan muxuu ahaa yacni oon wadin oo la garaco waddada lagaasiya lama marin karo war soomaaliyey waxaad yeeshaan dowladnimadii way dhaqaaqday qof iyo cod bay u baahnayd waxay taagan tahay malkada in la isu taago oo weliba jubbaland isu taagto oo malkada lagu gooyo oo soomaali halliganto ma yeelayno mana ogolin waan diidnay waana diidaynaa waana diidanaa mana suurogeli karto hormuud baan ka nahay guushaas soomaaliyeed ee dhalan haysana waxaanu ka qaadanaynaa qaybta nagaga aadan baan ka qaadanaynaa qabiilooyinka kalena waxaan ugu baaqaynaa walaalayaalow
doorashada qof iyo codka ahee qarannimada ee xukunkii ninkaan rabna aan dooranayno ayaa muxuu ahaa dan inoo ahe soo aan wada taageero dawladda taas ayna deeqaysee intaa kadib waxaan u jeeday baarlamaanka sharafta leh ee qaranka soomaaliyeed ee la rabo ninka tagaayo inuu garto xilkiisa ninka tagaa ummaddii uu ka tegay buu matalayaa hadduu wasakheeyo oo wasakh u soo jiido ummaddii buu wasakheeyey annaga ninna wasakheeya ma rabno mana aqbalayno waxaan leenahay baarlamaan buu yahay ma aha arrintu waad ogtihiinoo nasiib darrada jirta baarlamaan qos iyo cod lagu soo doortay maynan ahay kolka hore waxuu nin iska qortay bay ahayd ninkuna dee dantiisu waafajinhaye ninkii wuxuu la tegey golaha inuu nin u shaqaynhayo dantiisiina waafajinhayo annaga taa wakiil nagagama aha taa wakiil nagagama aha waxaan soo jeedinaynaa waan daawanaynay sharaf xumada lalahaa baarlamaanku ay lahaayeen qaarkood 3 nin oo ogaadeena yaa baarlamaankii ka shaqayn waayey oo waxa weeye xadgudub samaynaysa war 3daas nama matalaane qaanuunka dalka u yaal hala mariyo qaanuunka dalka u yaal hala qaada xasaaradda 3 kalan keenaynaa oo ilmaaderadooda ka macnaroon taasna saasaan ka leeyahay waxaan ku soo gabagabaynayaa 10 jeer madaxweyne iyo ehelka uu ka dhashay madaxweynuhu waxaan idiin soo jeedinaynaa mahad waxaa kaloo kuu soo jeedinaynaa dawladdaadu nin nasiib leh inaad noqotay oo waxba mucaaradkow waxaan idin leenahay war wuxuu ina wanaagsanay dantii idinku jirtaa ood bal inaad jagooyin ka heshaan laakiin inaad lugta qabataan oo dhahdaan yuuna ku guulaysan xasan sheekh wuu inaga sharaf badnaanayaa dadnimo ma aha taasu waa xaasidnimo daciifnimo waxaan leenahay ragga waaweyn ee awal dalka madaxda ka soo noqday mucaaradka ohow ilmaadeerayaala waad sartaan shacbiguna waa idin arkaay soo raaca ummadda geedigu wuu guuray mana soo noqonayo mana soo jooga haddaad rajo ka qabteen jubbaland inay celinaysana waa ma jirto ma celinayso geediga raacaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu